الرحمن الرحيم وزارة عيارها وقاسكا مدحضة كلا شرفت لك فريدة والدينتا iyo ardayda muxuu ahay halkan maanta ay xafladooda joogno dhammaantiin ba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore ilaahay baa mahad leh. runtii waxaan u mahad celinayaa ninka dhalinyarada ah ee macalinka ah ee keenay ama muxuu ahay ku fekeray in dhalinyarada magaalada ee reer Somaliland inuu wax baro sidii ayuu jidkooda u dhismi lahaa caqligoodana u dhismi lahaa waayo waxaa la yidhi alcaqli saliim fi jismi saliim. caqliga saliimka wuxuu ku jiraa jidhka saliimka ee wanaagsan. waa arkayseeno caruurtu siday isu muxuu ahay qalaabagadeeyeen xubnahoodu siday u silsilecsanaayeen waxa weeyaan xikmad ilaahay ugu talagalay qofka bini aadanka inuu qaban karo waxyaabo badan oo kala duwan. marka waan u mahad celinayaa. talabaad waxaan jeclahay waalidka ku dhiirigeliyo diinta islaamku waxayna faraysaa inaynu caruurta barro habka isdifaac. berigii hore waxyaabaha ugu qiimaha badan la beri jiray waxaa ka mid a fardaha iyo sida loogu dagaalamo. iminkana waa tuulada iyo karateyga iyo waxyaabo kale oo badan ayaa iminkana socda. marka waxaan ku boorinayaa waalidiinta inay caruurtooda baraan sidii ay isu difaaci lahayd. dhalinyaradana waxaan leeyahay waxaa laydin baray ee waalidkeeda baray iyo macallimiintiinu waa waxa aada u qiimo badan. kow marka hore waxaa la yidhaahdaa si aada nabad u hesho waa inaad xoog yeelata. haddaad intaad daran tahay oo nin tabcaan aad tahay ama aan waxba iska celin karin waxa laga yaaba inay quraajadana burburiso. laakiin marka lagu arko nin dhisan oo wax iska celin karaya qof waliba wadadu kaaga bariyaa salaam waxaan ahayn arki maysi. waxaan ka idinka digaya waxaa laydin baray inaad sida xun isticmaashaan. waxaa laydinka doonayaa sida wanaagsan. kow oo ah inaad naftaada difaacdo. laba qofka itaalka daran ee la dulmayo ee tuugga laga yaabo inuu islaan ama qof dumarahoo caruurteedii usoo baxday suuqa laga yaabo inuu moobal ka qaado ama waxa yanaysatay inuu ka qaado. waxaa laydin baneeyo diintuna idin banaysa inaad qofka itaalka daran difaacdaan. waxaa laydin baray. talabaad berito waxaa noqon doontaan dhalinyaro waaweyn kastabika qaarkii ku dhow yahay. waxaad geli doontaan shaqada qaranka. waxaa ka mid noqon doontaan difaacayaasha qaranka Somaliland. waxaan aada ugu faraxsanahay dadkaa tababarka la geli doonta inay yihiin dad aada idinka hooseeya waxaa taqaanaan aqoonin. hadday kalifto oo cadowga iska hor timaadaana waxaan yaqiinsanahay sidii iminka ay isaga qaadayseen midiyaha inaad soorka iyo qorigaba uga qaadi doontaan haddii la yidhaahdo oo guul iyo gobanimo aada u horseedi doontaan dalkiina. sheekadii halka ka dhacda aniga yar bay xasuustay. inankii aabihii lahaa aabo bal iska ilaali tuuti iyo waxaa beri anigoo xamar jooga oo 5 caruura leh ayaa xaafad baan deganaa. dabeedna dadkeennan berigii hore Somaliland loo yaqaanay waqooyi ka tegay. xamar waxaa laynooga yaqaanay Soomaali qaldaan oo macnaheedu yahay nimankii khaldanaa ee intay gobonnimada heleen dabeedna dad kale u dhigo reer musqul ka tuuray. markaa waxa la jiray waa Soomaalidii khaldanay. dabeedna xaafadii aan deganaa ayaa waxaa noqday Soomaali qaldaanka keliya ay ku jiray oo dadka ka duwan. dabeedna yararkaygii marka alla markii ama iskuulka qabanayaan ama ay ka yimaadaan dhexday isu taagaan oo dabeedna wax yar bay ka qaadaan buugaagtay ka seexseexaan boor bay ku shubaan. yararkii oo cawlano basiiraysan baa ii iman jiray. arrintii baa aad ii dhibtay.
dibadna waxaan warinaysaa nin baa yiri war waxa jirta meel koofuga lagu qorto iyo karatayga oo xamar ahayd stadiumka ahayd xamar marka waxa hadii ka geyso waxa laga yaabaa inay dhibaatada aad ka baxdo xintiiba meesha kan geli dibadna waxaan jiray si aan wax isaga elaysan aad wax barto inan baa number 1 noqotay iskuul dibadna shantooda markay soo rawaxayaan iyagoo dariiskaasoo kala gashay bay soo dabageli jireen maalintii dambe dabeedna yararka sidii ay u qorteen iyagoo 2 bilood meelaha ku jiray meeshii ayay dhexdaysu tageen waxooga yara ka qaaday bay islaahdeen dabeedna inantii baa 4 inoo baxday 4tii baa dhulka dhigtay midna xiliyahay ka laatay kii xiliyahoo hooyadii 2 dumar oo kale sidaan ayaa gurigii lay keenay waa laysoo hordhay waxay inantaa dishay aad baan hoosta uga qosay dabeedna waxaa waa ka xumahay waxa dhacay aad iyo aad baan uga xumahay inanteeda khaladkay samaysay maxaad ku dawoobaysaa lacag badan bay weydiiyey lacagta baa bixiyey subaxii dambe haddana sidii yaala haddana mid labadaa dhaho mid bararsan yahay baa lay keenay markaasaa inanteeda si keedi uga dhacaysay dhabanadaysa ayay labadiba casaadanoy barareen iyagana waxay maxaad doonaysaanoo mabsuud baa dhinacan lacagtaasaan bixiya markii dambe yararku markay dariiqa soo socdaan waa la salaami jiray berigoona soomaal qaldaan bay marka dambe ilmo warna xataa la odhan jiray markaa waxa weeyaan sida baa iminka xasuusisay marka waxa weeyaan inanku ama inantu weliba halka imika habli baa inaga maqan ceeb maaha imikana hablahayga iyo inamadayda inta yaryari karatayay ku jira marka imika soomaal qaldaan matalaada ka waxaan isleeyahay haddii mobilkii waxaan isaa ka qaada iyo sidii muxuu ahaye ugaasku sheegayey inaanay dee dukaan ka baqanin waxaa keliya idinka doonaya waxa weeye inaydaan laakiin idinku wax ku dhugmin waxaa bartay dhalinyaradaydana midkaa waa ka xoog roon tihiin waa ka maxaa dagaalyahansan tihiin waa ka adkaan karaysaan markaa ha ku tijaabinina inaad wax ku doontaan laakiin waxa u isticmaashaan inaad naftiinana ku difaacdaan dadka jilicsanna ku difaacdaan dalkiinana ku difaacdaan aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu